maanta waa maalin weyn waa maalintii la soo noqoshadii calanka Soomaaliland waa 34 guuradii May waa maalin ballaaran waa maalin horumara waxaad aragtaan walaalayaal adeegyada bulshada waxbarashadii dhaqtarkii saldhiggii wax kasta oo inaga maqnaa halkaa ugu soo gelsanay intaa kadib halkani waa degmada Baki oo ka tirsan degmada gobolka Awdal gobolka qoriga dhigay ee qaatay aqoonta qalinka intaa kadib waxaan leeyahay walaalayaal nimcada maanta aan joogno ee ku damashaadayno waa nabadgelyo haddii la waayo iskool la dhigan maayo la ciyaari maayo ilaahay mahadi weeye nabadgelyada ilaahay noo taamiyo salaadiinta joogtiyo oday dhaqanka walisiya suxufiga wax duubiyo saynisyahan aqoon badan milatari hubsidiyo ragga nabadda soo riday waan idin salaamee rabbi ha idin saamaxo saddexdaa araartii iyo weli salaantii ma u dhigay si qiimo leh anna sadarka maansada waxaan saaka ula kacay soo noqoshadii calankayga saaka la xusayaa maalin weeyi xusid mudan oo may loogu magac daray midnimada dalkeeniyo madal weeyi ciideed waana madal iftiinto xornimo maalka loo huray Soomaaliland waa geed soo magaalo mudhihiina bixiyo samada maraayo loo soo majeertee Allah ayow masiibada iyo madfaca wax dilayo ka ilaali murugada صفقات علنكو أيدين ما يوسعبتما قرنكينا شرفت له ربي باسن أنتيو قبني ما كساعدي إن كستي سعدا شيء سمدا مريزي ضرورات شاديو ضرورات لسعتي أساقيت الرينتيو سمعتي كدافته ربي بان نسيو أو سلوقي ماينه صفقات علنكو أيدين ما يوسركع سؤال عن ولاد سؤال نقول ما أنت قوي بيشو تهاي سيدية توكي مي تذكر كان جوعي بدن بنجري مالتي حرمة اللقاتي سيدية توكي مي 1991 ومالتي أي حرمة كقادني سومالي أنت ذكالي مالتي عالم كإنجليز قايلو قادني معها maalintii boorba la soo galay maaha waa maalintii aynu ka qaadanay Soomaaliya inteeda kala xornimada waa sanad guuradii 34aad ee ka soo wareegtay sanad muxuu ahaa dawladda Soomaaliland jiritaankeeda 34 sano jirtay waxay maanta gaadhay horumar aad u ballaaran madaxweynayaasha Soomaaliya ilaa 6 madaxweyne oo maanta aan hayna ayaa kamid ah waxay hana qaaday horu socodkii barwaaqada iyo nabadda iyo guusha iyo horumarka mar labaad walaalayaal maanta waxaynu u taaganahay oo shucuurteena iyo taageeradeena waynu muujinaynaa go'aan istaaga Soomaaliland ee 34 jirsaday walaalayaal maanta waan arkaynaa adeega iyo facility-ga fudud ee ka socda deegaankan ee aynu joogno annagu waxaan ka mid nahay inta ugu badan ee halkan joogtaa waxa weeyaan intii calanka ku hoos dhaalatay aad bay u yar tahay in aan calanka ku hoos dhalan oo maanta halkan joogtaa markaa sidaa darteed waxaynu u baahanahay inaan shucuurteena aynu muujino aynu ilaashano gobonnimadeena aynu ilaalino nabadgelyadeena aynu ilaashano calankeena aynu ilaashano dadnimadeena iyo wadajirkeena iyo waxqabadkeena oo aynu isgarab taagno mataqaanaaye horumarka deegaanka ka socda ee dariiqii leh ee caafimaadkii leh ee waxbarashadii leh ee horumarkii kale adeega bulshada leh waa degmo aad iyo aad wadaninimada ugu suntan waa degmo wax soo saar waa degmo aad u ballaaran waa degmo ka kooban ilaa xeego ilaa dila ilaa cali xaydh ilaa fadhixun waa degmo koobsatay weeye waa degmada Soomaaliland marka gabilay laga yimaado waa degmada masaariifaysa weeye sidaa daraaddeed
dawladdan imika ay noo dhalatay uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro uu madaxweyne ku xigeen ka yahay ambassador Maxamed Cali Aw Cabdi aad iyo aad baan u bogaadinaynaa ka degma ahaan ka wasaarada ahaan boqolkiiba boqol annagoo aan faaninayn aad iyo aad baan mabsuud ugu nahay waxaan idinku boorinayaa dhammaan inay degmada Baki la tartamaan degmooyinka kale ficeeda maaha inaan gidaal wax iskala wareysno haddaynu tartankaa geli weyno waxba noqon mayno nin walba waa la tartamayaa gobollaa loo tartamayaa degmooyin baa loo tartamayaa tuulooyin baa loo tartamayaa dhallaan baan ay ku koray innagu ka dhallinyar ahaan calankala maynaan arag kaasaan la daanahay kaa anigiyo inta iga yariba kaasaan la daanahay markaa waxaynu leeyahay koonfurna waxbay nagama yaallaan meel kalena waxay nagama yaallaane kaasaan leenahay aaminoo liqa gobolka Ceerigaabo iyo gobolka Selel inta u dhaxaysa jamhuuriyadda Soomaaliland ka kooban tahay oo maanta bishu 18 May ay tahay lagaga ciidayo looguna dalbaadagay calanka jamhuuriyadda Soomaaliland si nabadgelya Soomaaliland ha noolaato madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweyne ku xigeenku ha noolaadaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ha noolaado waxaan idin leeyahay cid baa taagantiin waxa mahada gobolka Selel iyo gobolka Ceerigaabo inta u dhaxayso maanta ina xabadi ka dhacayn inkastoo maalin dhaweedo doraada aydan ka xunnay kana taxsadeenayno labadii xubnood ee ku dhintay iyo 39 xubnood ku dhaawacmay intaas oo qashqashaada waxaan leenahay muddadaasina halka bay ku ekaatay si nabadgelyo iyo sharaf iyo maamuus leh iyo maanta looga dalbaadagaya dalka jamhuuriyadda Soomaaliland madaxda qaranka maanta xilka haysana waxaan leenahay waxaan u rajaynaynaa caafimaad qab iyo cimri dherer ummadda reer Soomaaliland horumar iyo baraar iyo waxgarad dhammaanba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka intaa kadib walaalayaal maanta waa la garanayaa maalinta ay tahay waa 18 May 18 Mayna maanta ma aha maalintii inoogu horreysay laakiin waa maalintii inoogu faahfaahda badnayd sidaana waxa keenay maanta in ay aad iyo aad aan ugu soo banaanbaxno waxa keenay isbeddelka cusub ee ka dhashay dalka sidaa daraadeed oo annagana horumar badan aan ka sugayno oo aan madaxeedii hayno wadadu ay ka kowtahay laakiin dawladda cusub ee maanta xisbiga wadani ka dhalatay waxaan ka sugaynaa degmada Baki haddii ay tahay waxyaabo fara badan oo horumarka iyaga ka dhiman waxaan aad iyo aad uga codsanaynaa waxaa naga dhiman annaga booliska degmadu aad buu noogu yar yahay waxaan doonaynaa madaxweynaha iyo ku xigeenka inay booliska iyo saldhigga ciidan badan noogu qoraan haddii uu barigii madaxweyne ku xigeenku aad iyo aad u soo qarameeyay Baki waxay kaaga fadhidaa ciidan fara badan oo amniga qaabilsan oo sharafta iyo quruxda qaabilsan bay kaaga sugaysaa madaxweyne ku xigeen inaad saldhigga iyaga iyo ciidanka iyaga iyo dhalinyarteeda bilaa camalka inaad ciidanka qayb laxaadna naga siiso aad iyo aad baan kaaga codsanaynaa halkan waxaan uga faa'iideysanayaa inaan u mahad celiyo madaxweyne ku xigeenka oo bariga hawl aad u ballaaran ka soo qabtay oo nabadayntii Ceelaf Weyn iyo hubka dhigistii aad iyo aad uga soo shaqeeyay ayaan doonaynaa inaan halkan uga faa'iideysano oo u mahad celinno ilaahay kugu asturo baan leenahay madaxweyne ku xigeen nabadda Ceelaf Weyn ilaahay xarigeeda ha xidho takala waxa weeye cadaad kulul baad joogtaan ilaahay baa mahadle ilaahay baa ina siiyay inaan saaka soo baxno inaan ciyaaro inaan abni sugan ilaahay baa ina siiyay waxaan inagu samaysanay maaha waa wax ilaahay raxmaankii inoo yeelay waayo waqti baan soo marnay aan abni sugani jirin aan dawladi jirin aan ciyaari jirin maanta waxaan joognaa heer sare Soomaaliland ha noolaato wixii inaga maqan ilaahay baa dhamayn kara awal waxa laga dhawaajin jiray in saylac la bixiyay oo maxay ahayd madaxweynihii hore bixiyay hadduu bixiyay waxa soo celiyay Cabdiraxmaan Cirro madaxweynaha cusub ha noolaado ha jiro ha joogo innagana ilaahay horumar fiican ay nasiiyo ubax baa tihiin inaguna ubax baa tihiin soo barbaara kuwii dalka waxa tihiin wax u qabanayay kuwii dalku ku faanayay baa tihiin waxa weeye reer awdal waxay ka dhawaajiyeen
dekadii la bixiyay hawsha lagu bixiyay inaguna bar baan ku lahay waayo baylaha baa inaga timiday adduunyada kawdeedii dekadeena jirtay aad iyo aad baad u mahadsantihiin baylahadaana waxbaan ku lahayn ay dekadeena ku baxday iminkana waa la soo celiyey cabdiraxmaan ciraa soo celiyey ha noolaado xilka loo doortayna ilaahay aad idinka mahad celinayaa ka soo qaybgalka munaasabadan 34 guurada 18 May oo ah maalintii dib u soo noqoshada xornimadeennii luntay sanadkii 1960 degmada Baki ha noolaato Baki ha noolaato aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa isku soo bixiinii waxaa kaloon u mahad celinaynaa guddigii qabanqaabada 18 May oo uu hormood noogu ahaa xogayaha dawladda hoose Mr. Cabdirashiid iyo maamulka kale oo uu kow ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka degmada Dayib Xasan Raage dhammaan shaqaale weynaha dawladda hoose guddiyadii waaxyaha oo aanaan la'aantood dhaqaaqneen laamihii hay'adaha dawliga wasaaradaha oo ay ugu horrayso wasaaradda waxbarashada oo ah indhaha degmada cadceedda oo kulul awgeed waxaan idinka soo gaabinaynaa barnaamijka markan waxaan u yeedhayaa gudoomiye ku-xigeenka degmada Dayib Xasan Raage ku soo dhawaada waxay farxada maanta 34 guuradii waxaan ku jiraa 18 May waxa laga yaabaa intiina ugu badan inaad ka dhalateen inta gudaheega inta inaad dhalateen anagu sawaan ka weynayn waxay farxada 12 sano ka hor oo halkan khayriyadan joognay 12 sanadood oo khayriyadan u soo taagnaa maanta xisbigaygii waa sanadkii koobaad ee xisbiga wadani waa sanad 18 guure waa maydii koobaad ee anigoo xisbigaygii joogo han ku dabaaldegay taasna waa mahad isbeddel baad u codayseen isbeddelkii waxaan doonaynaa inaad cadceedda u taagnaataan sidaad horeba ugu taagnaydeen eed codkiinna ugu shaqayseen rajiimkii ugu kaxayseen inaad ka dambena ugu soo dhowaysaan baan naga rabnaa inaad cadceed taagantiin waan arkaynaa inaad u adkaysatiin baan naga rabnaa waxaa la doonayaa 18 guur waxaan ku jirnaa 18 May 34 sannadood baan soo taagannahay oo bilaa ictiraafa waxaan ilaahay ka baryaynaa sanadka dambe inaan inagoo la ictiraafsan halkaa soo istaagno waxaan adduunyada ka doonaynaa iyo cid walba inaan sanadka dambe inagoo la ictiraafsan halkaas soo taagno soo ma aha in inagoo ictiraafsan halkaas soo taagno waxaan ku rajaynaynaa haddii alla qadaro sanadka dambe inagoo la ictiraafsan halkaas soo taagaynaa soo ma aha maxaan isku ognahay waayahay waad mahadsantihiin cadceedda xilli inaad joogtiin cadceedda waxaan ku soo dhowaynayaa oo shirka inoo soo xidhi doono maayirka degmada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim madaxda marka hore salaan kadib waxaan u mahad celinayaa guddidii qabanqaabada 18 May heer degmo iyo dadkii la soo shaqeeyay halkan la soo gaarsiiyay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxa kale oo mahad celinayaa bulshada reer Baki ee ajiibtay ee sab hagarnida ugu soo baxday 18 May maalintan maanta aan joogno inta haddaan dhaafo dad iyo waxaan u codaynay isbeddelkaas oo ah daacad iyo horumar iyo cadaalad inaan helno ayaan u codaynay taa haddaan iraado waxaad ogtihiin boqolkii maalmood ay qabsatay xukuumadda cusub waxaa 50kii maalmood ugu horreeyey waxaa la gaadhsiiyey qadiyadda Somaliland caalamka oo dhan baa la gaadhsiiyey taa waad ogtihiin in la gaadhsiiyey 199 xorta ee adduunyada ka jira
وعكنا وقتين إذا قبلت كي هو كتير كذا هيستي إن سكون مرين كاني إلا قرمي أو ترى سوما لا لك البدبادين وذكتي بدحوينك الحقيقة تضوات المعلومات يساعد بكم على بركة وحقنا لي بالي سيستين نبض وحنو قرمي إذا بيلدنا هاي تكني كذا وطي استغنى إلى هاي الشيء خير كسيو استغنى والمهد علنا وعكنا وقتين إذا ما دي قرك الديوان قليلي أو لقى السمية لقى فرح ينده قف والبنا أنكوت كيس العيت الله وشو بدون هذا كده هردا سواح وين واحد أستعمها الدولة وناك كم تايك واسع وعنا وقتين إن الدولة وإنت أجتوا بدن قمتي وعنا الفلوس بلنقادية دي وكم تاي ودوين كلام بالعمل ما أنت إيه ودنا كم تاي وعنا الله هاي دولة تسوى أكثر وهجرنا نروح شقينا وأنا مدحونا كحين حكومة دي سبعة مرة على الاستيادية توم كمبي ومالين وين أو قركن إليه هاي معلومة الحصو سنة والبل الحصو مالين تقوي وين هذا نهاية ربكي وعلى نقرب مالين تاين وين إنه استل ما تبغى صوب إحنا مال والبل لوق صوبهم سيدي الشاقي إن شاء الله احتراف به لسالوه قد يدي سومال لان وحلا جالسي عالم كأردن وأنا اللي سويتيني يا مانتا عقدية سواحد دافو دي دوري صدق يسرى فريق إثيوبيا دافو دي ما أنت ولا دافي ألقي أي تاجنيد وأنا بقصون تينو عالم كله بقصون سادرت يد وحنا يدكم بعد عليا دتك صوب حلو آدي أدبر يدكم بعد عليا جزاه الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته